salaamullaahi calaykum saaxiibayaal, maalin wanaagsan. kusoo dhawaada sheekadan cajiibka ah qosolkana badan ee aan maanta jeclaystay inaan idinla wadaago. balse inteenan u gudbin, waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad marka hore like saarto, siina share garayso si uu asxaab badan u gaaro. waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan kana helaan. nin iyo naag isqabay ayaa u dabaaldegaya sanad guuradii kasoo wareegatay arooskooda. muddada 30 sano ah, hal maalin dhexdooda khilaaf kumuu dhicin. markii la weydiiyey sababta iyo sirta meesha ku jirtana, ninkii wuxuu ku jawaabay: maalinkii ugu horreysay ee toddobaadna ayaa waxaan u soo baxnay dalxiis, annaga oo wadana 2 faras. faraskii ay xaaskayga saarneyd ayaa kor u booday oo iska tuuray, dhulka ayayna ku dhacday. xaaskayga inta ay soo kacday, boorkana iska jaftay, ayay faraskii madaxa ka salaaxday. waxayna ku tiri: tani waa markii koowaad ee aad dhulka igu tuurtay. mar labaad ayay fuushay faraskii, isla sidii hore oo kale ayuu faraskii dhulka ugu tuuray xaaskaygii. xaaskayga inta ka soo kacday ayay faraskii madaxa ka salaaxday. waxayna ku tiri: tani waa markii labaad ee aad dhulka igu tuurtay. mar saddexaad ayay isku dayday inay fuusho faraskii. sidii caadadiisa ahayd, faraskii uu iska tuuray oo dhulka ayay ku dhacday xaaskaygii. inta ay si degan dhulka uga soo kacday, ayay boorsadeedii kala soo baxday bastoolad, kadibna madaxa ayay ka toogatay oo halkii ayuu ku dhintay faraskii. inta aan aad u xanaaqay ayaan ku qayliyey xaaskaygii anigoo leh: maxaad u dishay faraska? sidee wax kaa noqdeen? waxaad tahay qof aan naxariis lahayn oo waalan. inta ay ii soo dhowaatay oo ay madaxa ii salaaxday, ayaa waxay igu tiri: waad i cayday oo waad igu qaylisay. tani waa markii koowaad. maalintaa laga bilaabo waxaanu ku noolayn jacayl, farxad, nabad iyo xasilooni buuxda. haddaba adigan daawanaya sheekadan maxaad ka fahantay? saaxiibada kale sheekada la wadaag, waxaa laga yaabaa inay ayagana ka helaan kuna qoslaane. muuqaalkanna inoo share gareeya.